wiilkan la yiraahdo Axmed aabihiis waxa uu geeriyooday isaga oo yar. Kadibna hooyadiis geeridii aabihiis kadib waxay isguursadeen nin kale. Si nasiib xumo ninkii waxa uu shardi ka dhigay in aanu dooneynin inuu la noolaado ilmo aanu isagu dhalin. Isla markaas Axmed tarbiyeyntiisii iyo korintiisiiba waxa uu istaagay abtigiis. Abtigiis wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan, Axmedna waa uu jeclaa. Axmed wuxuu barbaariyay barbaarin mid ugu wanaagsan. Wuxuu ka baxay waxbarashada heerka jaamacadeed. Isla markaasna waa uu weynaaday oo wuxuu noqday nin weyn oo isagu shaqaysta waxna qabsada. Waxaa jirtay Axmed abtigiis inuu dhalay gabar isaga la fac ahayd yacni la da'akeed oo isla barbaareen sidoo kalena wax isla barteen. Markii ay waaweynaadeen Axmed waxa uu jeclaa gabadha uu dhalay abtigiis. Sidoo kale gabadhuna waa ay jecleed oo yacni markoodii hore ayay ahaayeen dad si fiican isku fahamsan. Axmed abtigiis ayuu arrinkii la wadaagay, abtigiina waa uu ku farxay laana wuxuu ogaay wiilkan inuu ku barbaaray isaga hortiisa. Wuxuu ku yiri soo dhawow wiilkaygiiyo ma jiro cid adiga ka khiyaarsan oo aan ku hubo inaan siiyo ama ku aamino nolosha gabadhayda. Waxaan ogahay oo aan ku kalsoonahay barbaarintii aan ku soo barbaariyay. Sidii ayay isku guursadeen oo guri ayay dhisteen. Markii ay wada noolaayeen muddo ilaa 4 sano ah, wax awlaad ahna aysan isu dhalin ayaa waxay aadeen dhakhtar. Kadibna baaritaano badan kadib dhakhtarkii waxa uu u wacay Axmed waxana uu sheegay in yacni qofka taranka aan lahayn ama cilada taran la'aanta ay dhankiisa ka jirto inay tahay xaaskiisa si isagu uu bad qabo oo uu ka wanaagsan yahay. Axmed arrintaas run ahaantii kuma farxin waxana uu dhakhtarkii ku yiri waxaad samaysaa waxaad ku dhahdaa xaaskeyga ciladu waxa ay ka jirtaa aniga dhankeyga ama ninkaada dhankiisa ay ciladu ka jirtaa, adiguna isla markaas waxaa tahay qof caafimaad qaba. Sidii ayuu dhakhtarkii sameeyay, waxaa loo wacay gabadhii waana loo sheegay in ciladu ay dhanka saygeeda ay tahay. Waa iska sabreen waana ay soo laabteen gurigooda ay ku soo laabteen iyagoo markaas rumaysan qadarta Ilaahay. Waxay sii wada noolaayeen 4 sano oo kale, waa 8 sanadood. Kadib ayaa gabadhii waxa ay ku tiri anigu waxaan kula noolaa 8 sanadood waliba inagoo aanan lahayn wax caruur ah. Waxaan doonayaa inaan arko ubad aan anigu dhalay oo aan dhabteyda saaro oo aan la cayaaro indhahayguna ay ku duugsadaan. Ma doonayo inaan dhinto aniga oo gablan ah ama aan duqoobo aniga oo aan wax awlaada dhalin. Waxaan doonayaa inaad ifasaxdo sanadkan wixii ka dambeeya, yacni halkaan sano ayaan fursad ku siinayaa hadduu yacni alla noo qadaray inaan sanadkan gudihiisa aan helno caruur waa sidaan rabnay, haddii kale se waxaan doonayaa inaad ifasaxdo. Waxa uu ku yiri waayahay dhib ma lahan waan ku fasaxayaa. Wax yar kadib gabadhii ayaa xanuunsatay kadibna dhakhtar ayaa la geeyay. Waxaa loo sheegay in labadeeda kaliyood mid aanay shaqaynin oo ay u baahan tahay kali in loogu deeqo. Wuxuu ku dhahay Axmed waxa aan raadinayaa qof kali kuugu tabaruca ama siyaabo kaleba aan ku soo helo. Waa uu baxay 7 kadib ayuu soo laabtay waxana uu ku yiri waan helay qof kali kuugu tabaruca. Waxana aan 7kan dhexdiisana waxa lagu sameynayaa qaliinka. Waxana aan doonayaa inaan aado safar shaqo oo ii soo baxay. Waa ay xanaaqday waxana ay ku tiri ma waxaad aadaysaa safar waliba anigoo galaya qaliin qatartiisa wata. Qaylo kadib waa uu iska baxay. Ayadana qaliinkii ayaa lagu sameeyay, kalidiina waa loo geliyay. 7 kadib ayuu imaaday Axmed oo aad u duruufaysan, jiro badanna ay ka muuqato korkiisa. Waa ay baxeen dhakhtarka ay ka baxeen. Nasiib wanaag bilo yar kadib gabadhii waxa ay qaaday uur waxana ay dhashay sida caadada ahayd bilooyin kadib cunugoodii ugu horeeyay. Waa ay farxeen dhammaantood. Maalin ayaa waxaa dhacday in xafiiskiisa ama maktabka guriga library-ga uu ku lahaa wax ku akhrin jiray ayaa waxa uu kor tagay buuggiisa xusuus qorka. Kadibna buugga ayay si kedis u akhrisay waxana ay ogaatay in dhibaatada taran la'aanta ama qofkii la dhahay ciladu dhankiisa ay ka jirtaa waqtiga ay dhakhtarka tagayeen in ay iyada ahayd oo uusan isaga ahayn. Sidoo kale waxay ogaatay qofka kelida ugu tabarucay inuu isaga ahay. Isla markiiba waa ay yaxyaxaday waana ay xishootay. iyadoo weli buuggii haysa yani akhrinaysa ayuu kor imaaday kadibna waa ay awoodi weysay xataa inay sidaas kor ugu soo fiiriso laana waxay
waxay dareensaneyd inta uu u dulqaatay oo u sabray oo xanuun badan darteed u maray iyo siday markasta iyadu u xumeyn jirtay oo hadallada xun ama ficilada xunba u dhihi jirtay, siday mar walba u dhihi jirtay adiga ayaa ah qofka aanan dhalaynin, waxaad rabtaa inaad waqtiga iga lumiso. Kadibna waa uu dhoola cadeeyay waxaana uu ku yiri ha ka welwelin waxaasoo dhan, waxaan isku dayayay inaan qadar yar bal aan ka gudo badweyntii jacaylka, ixtiraamka iyo qiimeynta lahayd oo uu isoo dhexgeliyay aabaha oo uu ula jeeday abtigiis.